حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي العطار عن منصور بن عبد الرحمن ابن طلحة عن أمه هو يدي وصفية بنت شيبة الليلات عن أمه صفية بنت شيبة ابن عثمان ابن أبي طلحة العبدرية ومن صغار الصحابة أسبه هو يدي صفية وصحابية صغيرة أوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال وحتره يد كان رسول الله رسول الله وحوى يتكي في دنقيسده يعني كنت تيرسا اللو جيده دنقيسه هنا تيرسشو كسيحشو طيب يتكي في حجري ضبطيده حجري واسكمت وانا حائض انا عاده قبا فيقرا القران قرانك اخي جري حديث كان مهم جدا وهي معاني بدن waa ku jirtaa baabkii uu baabaystay macaanidiisu hadee waa ku cadahay oo dib ma laha in gabadha caadada qabta ay daahir tahay waxay hanbaysan la cuni karo oo san dib lahayn xadiidku waa ku cad yahay waxa kale oo ku cad hadee nabiga kaleey salaatu wasalaam haweenku markay caadada qabaan in xogow la yar dareemayo ama la yar quursanayo ama laga yar cararayo inay dareemaan ba laga yaaba nabigu tiibo baabiinaya weelka meeshay ka cabtay buu ka cabay meeshay afka saartay baa afka saaray meeshay ka goostay buu ka goostay dadka waxba kagama duwanid way aan ka ahayn in ilaahay xugum ka reebay iyo salaad iyo hawle ilaa aad ka daahir noqonayso marka waa mubaalaga fi mukhalafati al-yahud nabigu wuxuu ku xil dheeranayaa inuu khilaafo yahuud oo oran jiray yaan guri lala seexanin oo aan meel lagu la kulmin oo wixii oo dhan buu nabigu baabiinaya tayib macnaha muhiimka ku jira u fiirsada halka ayaga qolihiin gabdhaha dhii jiray dhiiga qaba kitaabka quraanka way akhriyi karaan xadiidku idin baabiinaya sayyidin baabiinaya nabiga kaleey salaatu wassalaam anoo caada qaba dhabteed ku seexan jiray fayaqra al-quraan maxaa keenay fayaqra al-quraan inaad fahantaan baa la rabaa fayaqra al-quraan al-hafiz ibn al-ghali al-eid حافظ بن حجر فقهاء المالكية فقهاء الشافعية فنق حديث وليبا كفي عن وحيد وحا كجرة إشارة كجرة waa maxay goobta lagu seexanayo iyo ruuxan dhabtiisa lagu jiifo waxa mamnuuc ka ahaa quraanka mamnuuc ka ahaa ayadoo sidaa tahay suubano asagu quraanka waa akhrinhayo marka dareen baa meesha ku jira hadii Aisha inuu quraan ay akhriday u banaantay iyadoo xaayada maxaa keenaya intuu dhabteeda ku saxido quraan akhrinay yani inaad fahantaada raba Aisha iyadoo dhig qabto caada qabto hadii quraanka inay qabto u banaan yahay wahamka ay saaraysay rafcinaysa muxuu yahay ayadoo xaayada bal quraanka akhrin kartay jirtay oo dib lahayn siday wadaadahan dambe umada kullu gooyeene maaligna ay riwaayo u tiiriyaan muran ka taagan yahay maxaa keenay suubanaha dhabtayda ku seexday anoo caada qaba quraanna akhriyay maxaa jira dareen yani xaayada quraan ma akhrido way xaayada quraan looma ogolo ruuxi dhabtayda ku seexana quraan mamnuuc buu ka yahay baad fahmi lahayd xaayada quraan in akhrido waa ka mamnuuc ahadkii la darso nabi maxamed oo dhabtayda ku seexdayna quraan ma akhrin kara ku soo degdegays wahamkii bay saaraysa oo ku leedahay xaayada quraanka loo diidan yahay ruuxa dhabteeda ku sixda ama la darsa ku shuqul ma aha inaad fahanteen mal qaabkii u dirishada muhaddisiintu waa muhiim jiddan dhabteeda ku sixan jira anoo xaayada ah wal quraanu mamnuucun aan al haid laakiin nabigu waa akhriyay way soo dhabteeda ku jiif macnaha meesha ku jiro daqiiqo inaad fahantaan u baahan tayib kulligoodna hawshaas waa tilmaameen waxa kale oo ku jira hooyadan ay ku tilmaamaysaa in quraanku uu ka caagan yahay meelahan daahirka ahay quraanka in laga ilaaliyo mawaadicda la qashinsado ama aan wanaagsanayn bimaana maxay ku tilmaamaysaa xaaido dadka qaarkii waxay yiraahdaan weeye agteeda iyo meel u dhow quraan lagu ma akhriyo laano ayada aan daahir ahayn wahamkina way saaraysaa oo annaga hawshaanada iyo quraan inaad akhrido adoo daris noo ama agtaanada jiifa ama nagu sixir culays malay ku leedahay labada mas'alaba way taqriirinaysaa in quraanku ka caagan yahay meelahan munaasabka in lagu akhriyo xaayadana aan loo ogolayn quraan inay akhrido ruuxa iyada la darsana
وأخرين كرو دبلهاي فهم كاسا ماشي كجرا وأنا فهم دقيقة ولا دبضنا أي مرين طيب انتقل العيد بهوشة إثارية هورتين بعض المالكية إثارية حافظكم يحول عليها وقر هوشة أيضا في العبارة أخرية هوشة أيضا هكذا دقنا قبلها عادة قبا كتاب قرآن مقاضي كران منا أخرين كران قلينا معلمين تدكسية القرآن كده قبلها حائضات كداية كتبتها كتب عيسى كداية قرآن كالأخرية ليدي وحولي سواء أسبوع شنبري هذا جيسة القرآن إلهي بقى واحد بدن بفضيات وإذا جيسة كرتا روح كلو يقانا أكتر كو أخرية كرا وقالوا ميرين كرا دقا هي قشن كرتا طيب لكن أيضها أخرده مصحفنا ها قادو كإلالية يا بل الله امتحان كسي شاف فرح ماشان كهل لي دنك آدي وتا قمان ضاف هذا الكيمياء طيب مع امتحان كان ما كتاب قرآن شيء سو قرشيدكم أضواطان معه فصل مشروع مسألة دينيت بالله الله مسألة دينيت بالله الله طيب marka dib u dhiga gabadha maalinka imtixaanka ka qaado markay daahir noqoto waxa culay soo jira يا قبا maxaa daliil ah طيب wadaad baa qaba haday tahay nin walba wadaad buu leeyahay laakiin waxa la rabaa kitaabka quraanka hadiyo goor 10 jeerna waa idin sheegay kitaabka ilaahay hadii la isku qabto waa la sameeyay iyo la sameyn maayo wadaad isku khilaafaan ra'yiga iyo madhabka ku cad ama u roon ixtiraamka kitaabka ilaahay mara hadiyo goor hadii laba madhab meesha ay ku jirto madhabka leeyahay kana ku roon weynaynta iyo qadarinta iyo sharfida kitaabka quraanka asaga mara hadii saxaaba laba qowl ay ku jiraan hebel waa kan iyo waa kan wadaadka hadalkiisu uu dhowrayo xurmada saxaabada qaata suubanaha calayhi salaatu wasalaam hawl ku sabsan hadii laga hadlaayo ra'yiga uu ku jiro qadarin suubane mar hadii mas'alo khilaaf oo saaqa ay tahay ka qaata dhanku baasha u qulunaysa maxaad u aadaysaa kitaabka quraanka shanta maalmood afarta maalmood ka daaya ha ku bahdilina xurmadiisi baa dhiman waa la fududaysan sida boogga quraanka booggi exercise ka hadda kitaabka quraanka loo tuuraa iskuulaadkan iyo madaaristan gabdhaha loo kalihin ee labadan horaan ba anigu cuqdad ka qabay oo cudurrada keenta waxa kamid ah iskuulaadka gabdhaha la geeyay iyo madaarista la geeyay gabdhaha muslimaadka la geeyay macallimiin ajaaniba wuxuu dhigaan ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo dibkiisa waxa kamid ah koow gabadha waxa ka dhinta sariigta iyo xishoodka waa cudurka koobaad ay gabadhu meesha ka soo qaato gabadha dugsi quraan bas la geeyay ama aabaheed iyo walaal wax bareen guriga ku joogta iyo mid iskuul ka soo baxay isku xurmo ma aha isku xishood ma aha isku sariig ma aha isku danqasho ma aha wadooyinkay kugu jiirahayeen xabadkay kugu qaad inaad ka leexato ma ka leexan maaya ayaga cambe iyo moos ruughayo oo taqsiinsan bay ka hor iman Somayda arag ma aragtem Somayda arag ayagoo yul oo buuqi oo dagaalami bay ku jiiri 20 jir ah gashaantiya iskuulka cudurka ka soo qaadeen ayadoo yaro 6 jir la geeyay ilaa 23 ba halka kuray dhex boodaysay iyo iskuul iyo macallin iyo balaayo xishoodkii iyo dareenko dhan ba ka tagay waa cudurka u yaray qabaan way ana hadda waxa xaraan idin ma laakiin anu cudurkan qabaan idin sheegay dareenkan ka qabo ayadoo sidaa taadana kitaabka quraanka wax naga soo hadhee boog exercise aan laga dhigin أنا كل أنت صايدن له وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك أن يهود كانوا وحياها إذا حاضت المرأة هويندو هدي عادها فيهم أي في اليهود لم يؤكلوها وحبا لم يسنعون الجرين ولم يجامعهن كل ما يسن كل مجرين في البيوت قريه
walam yujaamicuuhunna lam yusaakinuuhunna looga jeedaa huna galma ma aha kulankii iyo wada noolaashihii baa loo jeedaa walam yujaamicuuhunna kulamaysan kulmi jirin fi lbuyuuti guryaha fasa'ala asxaabu الnabiy asxaabta nabiga waxay weydiiyeen annabiya subanaha calayhi salaatu wasalaam bay arrinkaa weydiiyeen oo waxay yidhahan nabi allah haweeney caado qabta wax ma lala cuni karaa gurina ma lala seexan karaa faanzl allahu tacala ilahi wuxuu soo dejiyey wayasaluunaka can ilmaxiidi nabi allah waxay ku weydiinayaan can wad'i daati اlmaxiid can ilmaxiid maxiidku fi luqati اlcarab dhiiggana waa noqdaa waqtigiisana waa noqdaa hay-adana waa noqdaa ayib hunaa ha lagu daaya xaydkii tooska ha lagu daayo wayasaluunaka waxay ku weydiinayaan can ilmaxiidi caadada iyo xukumka dhiiggay ku weydiinayaan qul waxaad nabi allow huwa dhiiggu aw makaan almaxiid dhiiggii qudhigiisoo xaydka ah ama meesha laga helo xubinka taranka ah adan waa dhib iyo dhibaato factazilu الnisaءa fi اlmaxiid factazilu الnisaءa dumarka ka dheeraada fi اlmaxiidi fii waqti اlmaxiid ama min makaani اlmaxiid ama dhiigga ka dheeraada ilى aakhir اlaaya aayadda aakhirkeeda nabigaa marka fasiray faqala rasul ه sl ly slam wuxuu uhi isnacuu sameeya kula shayin wax walba dumarka ku sameeya dhiigga qabo caadada qabo la dhaqma weeye ila nikaaxa galma mooye waxaan galma ka ahay ayib riwaayadii abu daawuud baa ka cadayd jaamicuhunna fi lbuyuut wasnacuu kula shay ila nikaax guryaha kula kulmoo la seexda wax walbana waa idiin bannaan yahay waxaan galma ka ahay idan wayasaluunaka can ilmaxiidi riwaayada iyo xukumka iyo fasirka suubanaha tusa inuu yaha loo jeedo makaan almaxiid aw nafs alxayd oon waqti loo jeedin hay-a aan loo jeedin ayib fabalaqa dalika alyahuuda arrinkaasaa yuhuud gaadhay warkaasaa yuhuud maqleen ila magaalada madiinay joogaan faqaaluu waxay yidhaahdeen maa yuriidu hada arajulu ninkani ma doonayo oo suubanahay u jeedaan an yadaca inuu ka tago min amrina diinta yadii shayan wax uu daayo ilaa hadduu arrin aan leenahay jiriyo dhaqan annagu noo soo jireen ahaa khaalafanaa fiih wuu nagu garamaraa wuu nagu khilaafaa wuxuu noo dhaafayba ma jiro maxaa yeelay xataa dumarkii caadadoodiiba xataa nagu khilaafay hawshii annaga dhaqan noo haydeen lahayn ahludiin baan nahay dumar hadday caada helaan ha laga cararo bannaanka ha laga maro guyaan loo dhowaanin wixii o dhan wuxuu ihi waa qurb wixiina waxba kama jiraan fa jaa usayd ibnu xudayr baa yimid saxaabigii uwaaska ahaa wa cabaad ibnu bishr ayaa yimid faqaalaa waxay dhaheen yaa rasuulka ilaahayow ina alyahuuda yahuud taquulu kada wa kada yahuud saa iyo saasay yidhaahdaan oo waxay leeyihiin dumarka hadday caado helaan looma dhowaan karo lama agmari karo aayaddii soo degtay iyo xukumka aad saartayna xogow buuqbaba ka keeneen inta yaree dhimanna ma fufuqgoynaa bay dheheen say u samraanba xataa dumarka ma u galmoonnaa dhiigga qaba say yuhuudi u samirto ayaduu wanaag jecel buu ka yahay mukhaalafatan lilyahuud bay rabaan falaa nujaamicuhunna ay afalaa nujaamicuhunna ma u galmoonnaaba ila horaa waxaadna tiri isnacu kula shay ila nikaax xataa nikaax ma ku daraa say yuhuudi u samirto ayib fatagayara wajhu rasuul اllah wajhu rasuuli illah rasuulka wejigiisii baa isbedelay idanta waxay kutusaysaa nebigu diin buu ka hadlayaa ma aha hebel ku xumee yuhuud ku khilaaf ma aha xukun alle iyo amar rabbi buu fulinayaa wixii ilaahay banneeyeyna waa bannaan yahay wuxuu rabbi xarimayna waa xariman yahay ama yuhuudi ha jeclaysato ama ha dhibsato iyada u taalla xataa dananna ilaa aanu malaynay an qad wajada an qad hadiba inuu u cadhooday nabigu calayhima calaa usaydin wa cabaad nabigu wejigiisi baa isbedelay waa ka xanuunsaday erayga asaga ah haweenay cadaqbta ma u galmoona nabi allow ilaa aan isni nabigu waa u cadhooday labada saxaabi leanna su-aal qallafsan bay la yimaadeen way kaceen labadood markay arkeen nabigu inuu isbedelo hawshaa uu diiday ba iska kaceen way baxeen markay masaajidka saa oga baxeen yaa caana hadiyadoo nabiga loo wadaa ka hor yimid fastaqbalahumaa waxaa ka hor yimid labadii saxaabi hadiyatun hadiyad oo min labanin caana ah ila nabiga majliskii loo wado nabiga loo wada calayhi salaatu wasalaam markii caanihii lasoo dhigay dhiilka caanaha weyne nabigu wuxuu u yeedhay labadii saxaabi ee kacday ayib wahada min khuluqihi alkariim ayib inaan ku xidhiidhiyo oon xurmadaada ilaaliyo waa mas'alo inaan wax xaqdarada sheegta qabtana waa mas'alo bani aadamku inay isku keena way ku adagta ninkay wax yar ku qoonsadaan waxay ku leeyihin qori iyo qiiqi waa laska tuura nabigu hawshaas isagu ma aha qiiqaadana waa la baktiin yacbaa lagaa dhihi inta qoriga wanaagsan nabigu waa soo reebahayaa idan nabigu wuxuu alayhi salaam fa arsala waa fariin diray
روح بدروي في آثارهم أراد كودي والنبي يقول يا الله بضع عاناه كعبيني فسقاهم ما النبي عانيه بدنسيه وحكسيه وورب شيء فعرفا وحي قرتين لبدي السحابي أن لم يجد عليهما النبي يونس وعرون ويفهمين. طيب حديثكم مركب مسألة وكعدي هاي أصدقائنا أفوفق خلاف كيف قياء يسوس عدودان هويني حائضة وعادة قبطة وحا حاران وحاوي قلمه حبن كترنك عادوا أي كتالون إسكا إلالي وحكا لواف السحانية هاي بحكا لواف السحانية هاي. طيب بمعنى أما مركا هبنا أنا بلا كراهة أما هبنا أنا مع كراهة لكن حرام معها تفصيل كوران بن صومر حديثك مركا عكرمة عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقصهم مر أبو داود يسونك قيبة كمذا أياك قسي عدا كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا حديثكم ولا معناها هاي نبي هدوها وين عاده قبطوا وحوقبا هذا حبك ترانكم بمراي اسك ساري جرو اسك الى جرو وخي كله هويني ظاهره كسو قادي جري. الامام مغلطي بن قليج حوله واسناده صحيح حافظك حوله واسناده قوي رنتي لأنا ومن باب من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا ابن ماجه بينكم مرة واحدة هذه قيمة بدنوي مركا عائشة لو يدي لفتركيده هو إذا عائشة لو يدي ولا يدي محان نك وقبنا هوين عادة قبته كل شيء إلا الفرج يتري. إذا علم الفقه خاص أيضا هيسا كل شيء إلا الفرج وحن حبين كترن كأهين وأبنايها ابن عباس بس إذا كنت جاي أم سلمة لو يدو أين صدا مرتي مسروق عطاء شعب عكرمة حسن البصري نخعي سفيان الثوري أحمد إسحاق داود علي الظاهري إصبغ من الفرج المالكي ببعض الشافعية هذا هو الصواب. أصدق حديثك عائشة أنه هنا مش حديث عائشة ما هي حديث كان حديث أنس ناسقا وافقسن فتاوذي صحابة أمهات المؤمنين ناسقا وافقسن وحكى له خلاف سن ورأي فقه وذلك خلد من العيور داري أما الله قرم مريوي